بسم الله الرحمن الرحيم. أن وحكبرن ويديمان كلا what is a face value or a par value of a bond and what is a market value of a bond. Face value waxaan ku qeexi karnaa in ay tahay lacagta ku qoran ama lagu daabacay warqadda maaliyadda marka la soo saaro. Tusaale, waxaa la soo saaray bond muddadiisu ay tahay 12 sano. mid walibana waxaa ku qoran $1. haddaba $1 ayaa loo yaqaanaa face value. marka la joogo bond face value-ga waxaa sidoo kale loo yaqaanaa par value, waana qiimaha lacageed ee la siinayo qofka haysta ama maal gashtay boonka marka la gaaro dhammaadka muddada. sida caanka ah face value-ga boonka waxaa lagu soo saaraa $1, balse ogow waxaa jira in qiimaha ka badan in lagu soo saari karo. markan haddii aan ka hadalno coupon rate, waa dulsaarka ku qoran warqadda boonka marka la soo saaro. tusaale aan dhahno boonka la soo saaray waxaa ku qoran 10% ama 10%. face value-gana waxaa ku qoran $1. 10%kaas ayaa loo yaqaanaa coupon rate. balse coupon payment waa xisaabta inoo soo baxaysa marka la isku dhufto face value-ga iyo coupon rate-ka. haddaba haddii face value-ga boonkan ee ah $1 aan ku dhufanno coupon rate-kan ah 10% oo aan 10%gaas ka dhigno decimal, waxay noqonaysaa 0.1. haddaba haddii 1,000 aan ku dhufanno 0.1 waxaa inoo soo baxaysa $100. lacagtaas ayaa loo yaqaanaa coupon payment. coupon rate waa marka ay la socoto percentage. coupon payment waa lacagta aan ku soo helnay isku dhufashada oo ah face value iyo coupon rate. haddaba coupon paymentigaas waa lacagta ay helayaan maalgashatada marka la gaaro xilli walba. tusaale ahaan coupon paymentiga waxaa la bixiyaa 6 bil kastaba. marka la joogo suuqa lagu kala iibsado boonka, walxaha saameeya qiimaha boonka waxaa ka mid ah in dulsaarka isbedel uu ku imaado marka loo fiiriyo coupon rate-ka. midaas ayaa keenta in qiimaha uu sare aado ama inuu hoos aado. haddaan isla aragno micnahooda kuna hormarno premium price-ka, waxaan dhihi karnaa waa marka boonka qiimihiisa uu sare aado, waxaana keena sare u kaca marka dulsaarka ku qoran boonka cusub uu ka hooseeyo dulsaarka ku qoran boonkii hore oo aad maal gashatay. aan dhahno midka cusub waxaa ku qoran 5%, halka midka aad maal gashatay ee ku qoran tahay 7%. maadaama boonkaagu uu bixinayo coupon payment ka badan kuwa cusub, haddii aad go'aansatid inaad iska gedid waxaa lagaa siinayaa lacag ka badan lacagta ku qoran boonkaaga. midaas ayaa la dhahaa boonkan waxaa lagu gaday premium. oo tusaale ahaan haddii ay kugu qornayd oo kaleeto $1, waxaa laga yaabaa in lagaa siiyo 1,300 1,400. haddaan markana isla aragno qaybta labaad oo ah discount price, waxa uu liddi ku yahay qaybtii koowaad ee ahayd premium price. sidoo kale waxaan dhihi karnaa waa marka boonka qiimihiisa uu hoos aado. midaas ayaana keenta in dulsaarka ku qoran boonka cusub uu ka sarreeyo dulsaarka ku qoran boonkii hore oo aad maalgashatay. aan dhahno midka cusub waxaa ku qoran 6%, halka midka adiga aad maal gashatay ay ku qoran tahay 4%. maadaama boonkaagu uu bixinayo coupon payment ka hooseeya kan cusub, haddii aad go'aansatid inaad iska gedid waxaa lagaa siinayaa lacag ka yar lacagta ku qoran boonkaaga. midaas ayaa la dhahaa boonkan waxaa lagu gaday discount. tusaale, boonkaaga waxaa ku qoran $1, balse hadda waxaa lagaa siinayaa $700. marka la joogo midda saddexaad waxaa loo yaqaana the par, waana marka qiimaha boonka cusub iyo dulsaarka ku qoran ay isku mid yihiin. kuwii hore iyo kan cusubba waxaa ku qoran isku coupon rate. maadaama isbedel aanu jirin waxaa la gadayaa isla qiimaha ku qoran oo keliya. midaas ayaa loo yaqaana the par. haddana aan isla aragno micnaha market value. waxaan ku qeexi karnaa waa maxay qiimaha uu boonka ka joogo suuqa, ama waa maxay qiimaha hadda la kala siisanayo
boonkan haddii suuqa aan geyno ayadoo loo fiirinayo baahida iyo dalabka boonkan. haddaba face value-ga waa qiimaha ku daabacan ama lagu soo saaray boonka, halka market value-ga uu ka yahay qiimaha hadda lagu kala gadanayo suuqa marka loo fiiriyo baahida iyo dalabka ka jira. xog dheeraada oo ku saabsan financial instruments, financial markets, junk bond and bond holder, sidoo kaleeto money market, fadlan ka dhegeyso lifaaqa hoose oo aan hadda koor kaga soo hadalnay. mahadsanidin, waa inoo markale haddii rabbi idmo.